dugsigan hadeer dayacadaas baa ka muuqata waana maaragtay dadka ilmaha leh ayaa dad iska maaragtay dan yara ah ku dhawaad 30 arday oo isugu jira waalidiin u badan xoolo dhaqato iyo caruur ayuu quraanka kariimka ee qowlka eebe ku baraa balbaladan yar oo ka samaysan qooshado dugsigan oo macallin ka yahay macallin Cali Faarax Axmed Barre ardada dhigata mar waa u qorrax iyo qabow halka marka kale ay u tahay roobab taasi oo sababta inay qoyaan looxda iyo kitaabada hase yeeshee macallin Cali Faarax kama hor istaagin inuu wado barista quraanka kariimka ee qowlka eebe ardadan danyarta ah dugsigan walka looxdii iyo kitaabada wanaga qoyeen roobkan waxaan oo karanaal rabaa si aynu u soo bandhigno dayaca iyo duruufta adag oo wax ku baro ardadan ayaynu safar socod gaaban ah ku gaarnay deegaanka Xamruha Hagoogan oo qiyaastii 35 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug macallin Cali Faarax Axmed Barre oo ka warbixiyay dayaca iyo duruufta ay wax ku bartaan ardadan ayaa ka codsaday walaalaha muxsiniinta ah inay ku garab siiyaan dhismaha dugsi ka wanaagsan midkan si wax loogu baro ardadan danyarta ah magacayga waa hal ay yiraahdaa Cali Axmed Barre macallin Cali Axmed Barre la yiraahdaa anu waxaan ahay dugsigan oo muddo meesha ku yiilay macalinkiisiyaan ahay rag maaragtay quraanka ka bartay iyo rag hadeer cusub iyo rag dhexba way ku jiraan marka ilaahay mahadi sidaas weeye muddo intii ahna dugsigan meesha waan ku dhigayay haatana waan damacsanaa inaan ku sii dhigo ilaahay hadduu ii garto marka annagu waxaan ahay dadka maguurtada beenleyda adduun aakhira laga guurinay meelna uma guurno tuuladan Xamuro la yiraahdaan muddo joognay haddana aan rabnaa inaan joogno haddii ilaahay ibno masaajidkaas meesha ku yaalo oo hadda tuulada in kaga muuqanaya ayaan hadeer sanadan iyo sanadii ka horeysay aan abaabulkiisa dhisnay haddana dugsiyaalka haddii alla idmo waxaan u codsanaynaa oo dugsigan ugu soo horeeyo wixii wax nooga qabanaya inaan maaragtay ay wax nooga qabtaan masaajidka waa sidoo kale jiingad ayaan anagu heli karnaa dhisnay dugsiga waa sidoo kale waa wixii wax ka qabanaya masaajidka wixii wax ka qabanaya dugsiga wixii wax ka qabanaya dugsigan hadeer dayacadaas baa ka muuqata waana maaragtay dadka ilmaha leh ayaa dad iska maaragtay dan yara ah marka waxa weeye dad waxaa jira aan waxba kale awoodin oo ilmahooda maaragtay haday beeshaan aan tabar kale u lahayn marka geedwaabkaas ay awoodaan geedwaabkaas bay dhisteen marka waxa weeye dugsiguna waxyaalo badan u baahan yahay roobka oo xilliga roobka oo kor u baahan yahay wuxuu u baahan yahay maaragtay kitaabaha jaamacada uu u baahan yahay daryeel badan waa u baahan yahay marka wixii wax nooga qabanaya ama wax nagala qabanaya oo ay qof bal oo bakaraankeeda umada ilaahay baa baahida dabooli kara laakiin anagu waxaan u baahanahay wixii ama wax nagala qabanaya ama wax nooga qabanaya intaas baan u baahan aniga dugsiga macallinkan dugsigii halkan muddan ku dhigayay macallinkii dugsigan ahay hadba heer aan wax ku soo barayna bacahan u iibinaa hadba tabarteenan u iibinaa balbalooyinkan u dhisnaa hadba tabartu sidii ay tahay ayaan maaragtay aan wax ku soo wadi jirin haddana aan rabnaa ilaahay inay wax ku wadno haddii alla idmo macallin Siciid Axmed Barre iyo Cusmaan Axmed ayaa dhankooda ka codsaday walaalaha Soomaaliyeed inay kaalin mug leh ka geystaan dhismaha dugsigan wax lagu barayo ardada danyarta ah bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam meeshaan maanta la yiraahdo Xamruha Hagoogan dugsigan oo macallinka ka yahay macallin Cali Faarax Axmed Barre dadka soo waxaan nahay maanta anagu socodka ku yimid qaybtan warbaahinta aan ku soo lug darsanay anagoo arada indhayn ugu soconay meeshaan kula kulannay maanta dugsigan iyo ardada iyo macallinkooda oo xoogaa si dayacaada ay uga muuqato duruuf waxaan marka insha Allah tacaala say ayaga waalidiinta iyo macallinkuba u codsadeen iyo ardaduba waxaan anaguna codsiga ugu daraynaa dadka islaamka ah muxsiniinta oo wax awooda inay ka geystaan kaalin intii ay awoodaan dugsigan dhismihiisa insha Allah qabanqaabadiisa lagu jiro qoladii asaga dhan qaadanaysa waa mahadsan yihiin waa la soo dhaweynaa qoladii wax ku darsanaydana iyada sidoo kale iyagana waa soo dhaweynaynaa saad u jeedaanba waa xilli roobaada lagu jiraa loox iyo kitaab iyo dadkii intiiba waa xilli qoyaan markii kale qorrax noqotana ayana waa qorrax markii kale qabow kale iyo dhida ay jirtaan ayana waa sidoo kale intaba har iyo dugaal iyo kor intaba way u baahan yihiin waa dareemi kartaan oo dadku waa nafley inta dadku ay rabaan ay u baahan yihiin
meesha ay ku sugan yihiin iyana waa arkaysaan kole waxaa lila qof haddee korkiisa biyo kama hagradeen hadday awoodaan dadka ama waalidiinta ama ilmahan dhalay saan way ka bedeli lahaayeen waa koley waa duruuftaa kala gaabiday waxaan marka codsiga ay jeediyeen aan kula kabayna annaguna dadka muxsiniinta wixii ay fariintaanu gaarto inay kaalin ka geystaan oo ay barnaamijkaas ka qayb qaataan sadaqa jaariya waaye aakhira aad iyo aad ay ugu moodayaan kalaamka ilaahay meesha lagu dhigaayo wax lagu bixiyo waa waxa ugu fiican meesha ugu fiican wax lagu bixiyo waxaan marka insha allahu tacaala naftayda iyo nafafka kaleba u dardaarma inaan arrintaas aan ka qayb qaadano insha allahu tacaala codsigaasay dadka waalidiinta iyo macallinkii ardaduba jeedsadeen annaguna waa nala muuqataa waa aan u jeednaa waa aan la codsaynaa annaguna intaasaan insha allahu codsigaasaan ku kaabaynaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam waxaan nahay dadka meeshaan magaceeda waxaa la yidhaha xamurre hagoogan baa la yidhaahdaa xamurre hagoogan bay ku magacaaban tahay tuulada xamurre hagoogan yaa dugsigaanu ku magacaaban yahay 3 dugsi oo meesha lagu dhigay baa hadda midkaan u dambeeyaa sidaad haatan noogu jeedaan ama noo maqashee baanaan nahay waxaan rabnaa oon codsanaynaa hadda balaaya nama haydo codsidana ilaahay baxasho wixii uu haata ilaahay ku siiyo wixii la helo ilaahay baa looga mahadnaqaa wixii la waayana ilaaha loogu samraa waxaan rabnaa wixii muslinaho sadaqa la bixi kara meeshaan ragga aan isagu keennay hadda dhib balaayahoo nama haayo ragga meeshaan aan isagu keennay oo joogo hadda dugsiga joogo oo la arko oo hadda loo jeedo ama la maqlay raxmadda ilaahay keenay korkooday ku baxday kuwii horena siday ahaayeen bacaha dulfaha oo masawirku qabtay oo loo jeeday ay ku dhigeen qur-aanka kuwii hore kuwaanuna hadda ku dhigayaan waxaan doonaynaa inay makaan ku sadaqaystaan oo ilaahay dartiis geystaan sidaasaan doonaynaa